كفر قلبك حرم فرياش عفنتا oo garaac albaabada idin dhaxeeya adiga iyo dadka hadii ay hore u furi waayaanna dardiinka u saar zahuurta iyo baxyada aad wado kuna dadaal in adiga iyo dadka uu idin dhaxeeya qalbi saafi ah iscafiya sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badan oo wanaag ah oo ku labisan bani aadamnimo iyo naxariis oo gudaheena ku jira sidoo kale waxaa jirta fidra qalbiyadeena ku abuuran oo aanan ka warqabin haddaan ogaanase waxaan garan doonnaa in haddii si kasta loo caroodo caradu ku demi doonto daqiiqado kooban si kasta oo loo qaldamana qaladka waa laga soo noqon doonaa iscafiya ramadaan maalmo kooban unbaa ka laabane ma waxaad doonaysaan in bishii khayrka iyo wanaaggu idiin soo gasho iyadoo walaal kale qalbigiisa xiqdi iyo xasidnimo ugu hayo nebiguna sallallahu calayhi wasallam wuxuu sheegay inaysan bannaanayn inaad walaalkaaga ka hijrooto ama aad ka aamusto wax ka badan 3 maalin wuxuuna sheegay nabiga sallallahu calayhi wasallam inuu khayr badan yahay kan ugu horeeyay ee salaanta bilaabay kala hijroodkoodii kadib soo saar waad saariye saar oo dibadda soo dhig qaybta xun ee qalbigaaga gaadhay ku kab oo ku dhaji allaha kugu kaalmeeyay ku dhaji qalbigaaga qaybaha wacan walaalayaal aan furno bog cusub oo cad lagana fogeeyay xiqdi xasad xumaan iyo xamba cafi oo saamax qof waliba oo ku xumeeyay cafi oo saamax cid waliba oo kugu xadgudubtay cafi oo saamax cid waliba oo wax u nidin dhaxmareen iska cafi dhamaantood allah kuwa wax cafiyo waa uu jecel yahay ugu dambayn allah waan cafiyo qof kasta oo muslim ah mana jirto qof aan wax u qabo allah waan cafiyay ee iyagana cafi aamiin ya rabbi